aniga waxa ila muuqataa in kacdoon shacab laga abuurayo waxa iga yaabisay waxa ciise musalleynaya maxaad ka wadaa ciise musiya waxa ciise musalleey markasta ciise musalleynaya halkan ayuu hargeysa xalay nin samsaar ku dhintay waxa leynaya ayaa ila la yaab leh oo ay waxa weeyaan dawladda laga rabaa baaris in lagu helaa loo baahan yahay waa sida markaad leedahay beesha ciise musoo kaliya weeyaan beeshan dad ka dhimanaya ama la leynaya meel la oran karin adiga laftaada ka ciidad weynaad wada wararka sheegay inaad lacag ku bedeltay darajadaadii ka hor war laa ilaaha illa allah hadar rasuulullah beenaal arta ka hadalka dibnaha anigu lacag uma baahni waa sida madaxweynaha hore ma lacag baa jirtay waana ka qabtay guriyaha ku dhistay xad ka sheegay muuse bixil lacagtaad ka qaatay guriga ku dhistay waxaan ku dhisay waxaan ku dhisay waayo cashuurtii dadkayga aan barqaatay bayday marka miyaan xaraan kuga hayn dee waa cashuurtii dadkayga ayaan bar qaatay waa kusii dalka waan u soo dalganay miyaan xaraan kuga hayn waa maxay ugu hanaysaa imsa lacagtaas dee maxaa waa kusii adigu xisaabiyaadka waa kusii adeer ilaahay imsi gaadhis marka war waxa ka bax laba nin oo xusu dhiibay hawshooda laba galo wariyanimadana waxba yeelaysaa taas dabagala system oo la shaqeynay systemkii dawladdu hore la shaqeynay wuxuu beegsanayay dadka mudaharaada ee galxad wuu ku leynay waa ku amaanaya waa ku amaanaya sabab shaqadiisa gashay waxaad maadaama dabagale beesha ka dhashay garxad suuleen jiray cadi dheer waa inuu laayaabo leeyahay beeshiisa ka hortimaada systemka uu shaqeynayo waa inuu gacan break ku qabtaa anigu halaayo ma lihi daawadayaal halkan aad naga daawanaysaan waa Horyaal TV aniguna waxaan ahay Liibaan Cismaan Cali barbarkayga waxa taagan Generaal Caare oo dabcan si weyn u wada garanaysaan Generaal ugu horeyn ku soo dhaw Horyaal TV gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood waxa la sheegayaa in lagaga dhawaaqay maamul lagu magacaabo maamulka waqooyi bari bal aragtidaada arintaasi say kula muuqataa maamulkaasi cusub bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore bulshada reer Soomaaliland iyo TV-ga Liibaanba waan salaamayaa markaan aragtidayda waxa weeye ninkii hadii la yiraahdo hebel baa ku caayay oo bulbuna culbaan ahayn weeye maamulkii Soomaaliya soo dhaxgalay Soolna galbeedkeeda annaga degan bulshada reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan difaaca dalka ayaan xusuusinayaa nimankaana awal bocol baynu ahayn maxaabiisteennii hayaan waxa soo dhaxgalay Soomaaliya awal bay iska celin jirnay maantana way iska celinaynaa mana jiri doono waqooyi bari ma jiri doonto war reer Soomaaliland nimankaas xilliga ay gartaan hadda ma jeclin in maxabad lagu bilaabo laakiin haddii ay fadhi waayaan si wanaagsan baa loo bilaabaya haddiiba uu maamulkii hirgaray oo lagu dhawaaqay oo nidaam dawladeed iyo kala dambeyn ay samaysteen Soomaaliland maxay ka qaban kartaa nin gurigiisa galay oo ka hadlay wuxuu ka dhigay inay fartaag nin la oran jiray inay fartaag inuu gurigiisa madaw galay wuxuu ka dhigay inay fartaag marka waa loo deynayaa gurigiisu ku jirayaa bal halkuu waqooyi bariga geynayo isaga yaqaan xaalad dagaal hadii lagu wajahayo oo wax laga qaadayo reer Laascaanood hadii dagaal wax laga qaadayo Soomaaliland ma waxbay reebatay miyaan hore dagaal waxba aan la isku lahayn aanu dhexmarin oo saraakiil reer Soomaaliland miyaan Laascaanood ku xidhnayn Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maalintaana maalin bay maantana waa maalin kale laba jeerna laba libaysto laba jeerna ninka lagama wada libaysto haraa looga libaystay libtii bay soo ceshadeen maantana hadday isku soo dayaan dhig iyo dhaban baa loo fujinayaa maalintaa lama wada socon maanta laakiin Soomaaliland way wada socotaa ilaa hadda xukuumaddu waxay doonaysaa inay arrintaasi si nabadeed ay ku dhamayso ilaa haddana mayna arag meel ay xukuumaddu kaga dhawaaqday in dadkaasi gacan biro lagu qabanayo oo dagaal lagu qaadayo adiga ayaa kuu sheegay arrintii aniga caqligayga sheegaya aniga caqligayga ayaa sheegaya xukuumaddu wax xukuumad dimuqraadiya wax xukuumad siyaasiya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi nabad iyo gobol boodhiga ma ninka qaata kan qaadan ka qaato waa soo dhaweynayna ka qaadan waayana xabad baan ku la qaadanayna haddii alla yaqo
haddii ay ku yidhaahdeen xukumi maysa reer laascaanood oo aniga maamula oo isku filan oo dhisanaya dadkayga ma qasab baa lagu maamulaya adal waxa la yaa isirku gaashaamu hargeysa keeni lahaa xarshin buu hargeysa keeni lahaa in cagjar baa xukuma sida bay u diidi karaan ma jirto waa sida way cabdisaaq khaliif oo ah gudoomiyihii hore baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa hadda isu soo taagay oo ah inuu yahay murashax madaxweyne oo maamulka hadda lagu dhawaaqaya ee laascaanooda bal saad u aragtaa haddii uu marjaraha u qabto cabdisaaq khaliif maamulkaas cabdisaaq khaliif awal badaacad maan ahayn buu kitaab uu baallaha ku jiray awal ba Soomaaliland igama dhaadhacsan hadda reegama dhaadhacsan buu wuxuu keenaa baan loo wadaynaa waa sida anigu arrinta dagaalka madaxweynaha dalka uu jooga siyaasad buu ku wadaa dadka laakiin bulshada aniga iga tala qaadata ee reer Sanaag iyo Sool ee jahada hore ku jooga haw diyaar garooban dagaal bal leh way magaalada Ceergaabo ayana leeyahay in xarabo ku soo ruqaansanayaan oo sidii laascaanood kale ayaa loo qabsanaya bal arintaas ka wixii ay kala kulmeen ay kala kulmi doonaan hadda leeyo halkee ay kala kulmeen Ceergaabo daraartii hore waa sida way generaale muddooyinkii u dambeeyay dilalbaa ka dhacay magaalada Hargeysa oo soo noqnoqonayay maanta u dambeysana dil baa la sheegayo magaalada Hargeysa ka dhacay bal arintaasi maxay kula muuqataa horta waxa laale waxa dhintay Ilaahay oo naxariisto wixii direena Ilaahay hayraso aniga waxa ila muuqataa in kacdoon shacab laga abuurayo waxa iga yaabistay waxa Ciise musalleynaya maxaad ku wadaa Ciise Muusiya waxa Ciise musalleey markasta Ciise musalleynaya halkan ayuu Hargeysa xalay nin Ciise musaaba ku dhintay waxa leynaya ayaa ila la yaab leh marka ayaa leynaya ma beeshaad ka soo jeeday garxays war maya war halka ha jirin waxa leynaya wax kicinaya shacabka oo ay ah waxa weeye dawladda laga rabaa baaris in lagu helaa loo baahan yahay waa sida way marka dadka dhimanaya ma reer biyo badan hadda Ciise musalleynaya waa sida marka maxaad u maleynaysaa waxaan anigu u maleynayaa waxaan aqaanaa sida bulshada loo kiciyo sida loo baqtiyana warna dhagayso hadalkayga maqal anigu waan ku dhameeyo marka bulshada waa la kicinaya siyaasadda Cabdiraxmaan baa la diiday yaa diidan waxa diidan ka kicinaya dadka leynaya ciidanku dadku ummadda ku dhex jira waa in la fahmo la garto taliyaha ciidanka bileysku waa inuu qaybaha control saaro saldhigyada saaro CID sameeyo islaamaha qudrada iibiyay ku guriga jooga CID laga dhigo gudiya laga sameeyo xaafadaha in la baaro weeye wax qabad la muujiyo xaafad kasta iyada la isu diro dhalinyarada wax lagu yeesho wax badan baa loo baahan yahay in la helaa baa loo baahan yahay qofkii wax dilayay yaa helaya marka ummadii aad taabacsaneed aad soo dhistay way shaqaynaysaa maxay tahay sababta wax uga qaban lahayd adeer dhageyso xukuumaddani way shaqaynaysaa madaxweynaha aan dhisayna siyaasadii dibadda iyo tii gudahaba horta tii dibaddu wadaa si waana karkaraya si wacan buu wadaa si wacan buu wadaa arrimaha gudaha aanu soo noqdo arrimaha guduhu haddii ay wuxuu ka fan bataan oo ka baaxad bataan shacabkaa loo baahan yahay inay caawiyaan oo qof qabtaan oo soo jeestaan oo eryadaan shacabku haddii uu la shaqayn waayo dawladda dee waxa weeye meesha dawladlaan waxay imanaysa shacabkuna hoy heli maayo nabadna heli maayo markaad leedahay beesha Ciise Muuse kaliya weeyaan beeshan dadka dhimanaya ama la leynaya meel la oran karin adiga laftaada kiciidad weynaad wada ma wado wallaahi ma wado bilaahi ma wado nabadda waxay ah nabadda ayaa waxay ah waxaan ku leeyahay way u badan yihiin marka dadka dhimanaya u badan yihiin marka ma si gaar ah loo beegsanaya dee waa yaabanahay watayga yaabisay adaad ka warrami doona wariyaa waa sida way generaal dhawaan hadalkayga ugu dambeeyay jeedisay waxaad sheegtay in mas'uuliyiinta dhanka amniga madaxweynuhu uu xushay hadday noqoto wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha booliska oo ilmaadeeri ay ku fashilmeen amnigii taa bedelkeedana waxaad amaantay taliya dabagalo aad tiri nin wanaagsan buu ahaa xagga amniga uu ka shaqaynay ma la oran karaa caari waa qabyaaladiis waxaan uga jeeday dabagala system buu la shaqaynay systemkii dawladdu hore la shaqaynay wuxuu beegsanayay dadka mudaharaada ee galxad wuu ku leynay
وكو أمانية وكو أمانية شقدي ساق الشيء وكو أمانية عبد الله روح على جربه سيدا uu dabagala uu shaqeyn jiray inuu shaqeeyo xadid maadaama dabagala beesha oo ka dhashay garxajis uu leen jiray Cabdi Dheere waa inuu laayaabo leeyahay beesha soo hortibaada systemka uu shaqeynayo waa inuu gacan bir ku qabtaa anigu halaayo malihi waa laakiin inuu gacan bir ku qabtaa waa sida way dhawaan markaad hadalkaasi jeedisay aad taliyaha booliska wasiirka arrimaha gudaha eedeysay taliyaha ciidanka booliska uu hadlay si adag baan u hadlay ma la oran karaa jabadaas adiga kugu socotay hadeer hadii ka daba tigmeeyo aniga Cabdi Dheere laba nin oo ilmaadana baanu isku kulliyad baanu hayn aniga baxsaday oo tiga garoway raggaygii iyo tiknikadii oo nabad qabataan keenay isaga waxa la weydiinayaa ciidankiisii qarankeen la saacanood oo sida maxaa ka wada leeyahay iyagoo aan dhamayn buu yimi la keenay miyaan waddanku markaas madaxweyne lahayn oo musabix miyaan madaxweynuhu dadka ma difaaco dalka ma difaaco midhaha wax difaaca ciidanka difaaca saraakiisha difaacda madaxweynuhu kursigu fadhiya siyaasaduna hogaamiya siyaasadda dalkuna hogaamiya wasada dilalkan hadda dhacay ee soo noqnoqonaya dad badan xukuumadda ku eedeynayaan ama beeshaad ka soo jeeday garxajis arrintaas ka hor ha soo qabtaan ha la soo qabto dawladda u taasi shacabkan waxaan farayaa waxaan ku ballabinayaa waxaan ku adkaynayaa inay bilayska la shaqeeyaan qofka qof dilay daba galaan oo qabtaan dadka qaar baa sheegay sirdoonkii Soomaaliya soo dhex galay arrimahan oo Soomaaliya ay dad Kenya ayadu leeynayso arrintaas ka hor sirdoon baynu u leenahay yaa ka waraman way ugu dambeyn generaale dad badan waxay filayeen markuu madaxweyne cirra talada dalka qabto in darajadaadii soo noqonayso la arkayo ciiro caaro oo dreeskii xiran oo darajadiisii soo noqotay darajadaadii ciidan maxaa ilaa hadda lagu siin laayahay waxaas madaxweynaha ku xirantay madaxweynaha adeer baahida dalka iyo madaxweynaha ayay ku xirantay way iman doontaa laakiin waxaad xaq u leedahay Soomaaliya waa taasi waxa talaa madaxweynaha aniga baahidayda waxa ka weyn baahida shacabka wararka sheegay inaad lacag ku bedeltay darajadaadii ka hor war laa ilaaha illa allah xadar rasuulullah beenaalaata ka hadalka dibnaha anigu lacag uma baahni waa sida madaxweyne horaan waxa isku weedno haye madaxweyne hore ma lacag baa jirtay waana ka qaatay guriyaha ku dhistay xad ka shaqeeyay Muuse bixi lacagtaad ka qaatay guriga ku dhistay waxaan ku dhismay waayo cashuurtii dadkayga aan barqaatay beede marka miyaan xaraan kugu hayn waa cashuurtii dadkayga ayaan barka qaatay waa kusoo dalka waan u soo daadanay miyaan xaraan kugu hayn maxay ugu hanaysaa maxay ugu cashuur bixiyaan ilaa kubanaan sano laga qadiyay afar sano laga qadiyay marka maxaa sababta lagu siiyay lacagta malaaluush qaranka laga laaluushiyay ma ahayn siyaasadii aan saruugay ayaan kaga bedeshay markii dambana waanu heshinay libaxa inta lacagtaas maxaa waa ku siiyay adigu xisaabiyaata waa ku siiyay adeer ilaa imsi gaadhis marka war waxa ka bax laba nin oo xusul dhiibay hawshooda laba galo wariyaha wariyanimadaadana waxba yeelay